Soomaaliya dalkii siin jiray sadaqada dowladaha qaliijka hadda ka horna ku dhabar jebiyay dagaal dalka Ethiopia. Sidee ayay iskugu bedeshay dal faashil ah? Haddii aad weydiiso dhalinyarada dhalatay 1990kii kadib Soomaaliya, haddii uu hore u maqlay oo aad u sheegtaana in ay siin jirtay sadaqo dowladaha qaliijka, ciidankeedana uu kaga guuleystay dagaal dalka Ethiopia, wuxuu u malayn doonaa inaad ka hadlayso dal kale oo aan ahayn Soomaaliyada oo asiga ka maqlay kaliya baahi iyo dagaal. Sida ay ahaan jirtay Soomaaliya iyo sida ay noqotay, ma laga yaabaa inay ku noqoto barwaaqadii ay ku jiri jirtay. Soomaaliya juqraafi ahaan waxay ka mid tahay Geeska Afrika. Dhulka Soomaaliya waxaa ka soo taliyay boqortooyo aad u tiro badan oo la lahaa xiriir ganacsiyeed faraacinada. Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha Islaamka ugu horeeya. Diinta Islaamka waxay soo gaartay Soomaaliya waqti hore kadib hijradii asxaabigii ku magac dheeraa Jacfar ibn Abi Talib uu ku imaaday dhulka Xabashada, waxaana sidoo kale xoojiyay inay dacwadu ku faafto dhulka ay Soomaalidu degto ganacsatada Soomaaliyeed oo u ganacsi tagi jirtay dhulka Al-Xijaaz. Kadib dadaal dheer ay muujiyeen Soomaalida 15kii ayay soo ifbaxday quruxda Soomaaliya, laakiinse waxaa hakiyay dagaalkii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia. Dagaalkaasi waxaa hogaaminayay ciidanka Suldaan Axmed Ibraahim oo ku magac dheeray Axmed Gurey. Dagaalkaasi waxaa looga dan lahaa in lagu soo islaamiyo dadka dega dhulka Ethiopia maanta. Ciidanka Axmed Gurey ayagoo ku dhow guusha ayaa waxaa dhabar jebiyay ciidanka Saliibiyiinta ee Yurub uu hogaamiyo Boortaqiiska. Suldaan Axmed Gurey asigoo u haya ciil hogaamiyaha Boortaqiiska ayay waxay ku kulmeen dagaalkii Wafla, wuxuuna gacantiisa qoorta ugu jaray hogaamiyaha kooxda Saliibiyiinta Christopher, wiilkii hogaamiyaha caanka ahaa ee Boortaqiiska Vasco da Gama. sanad kadib dagaal aano ay soo qaadeen ciidanka Saliibiyiinta ee Boortaqiiska ayaa lagu dilay hogaamiye Axmed Gurey. gadaashiisii waxaa aasaasmay dowlado tiro badan oo sababay inay Soomaaliya hoos tagto isticmaalkii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Faransiiska qarnigii 19aad. hal qarni kadib waxaa bilowday iska caabinta cadowga oo hogaaminayay halgamaa Maxamed Cabdulaahi, hogaamiyaha ciidanka daraawiishta. markii ay arkay Ingiriiska awoodda ciidanka daraawiishta ayay waxay go'aansadeen inay ku soo biiriyaan dagaalka diyaaradaha dagaalka, kadibna waxay ku guuleysteen inay dilaan haliyey Maxamed oo ahaa hogaamiyaha ciidanka daraawiishta. taasina waxay sababtay inay burburaan ciidanka daraawiishta. Soomaaliya waxaa loo qaybiyay 3 dowladood: Soomaalida Ingiriiska, Soomaalida Talyaaniga iyo Soomaalida Faransiiska oo hadda loo yaqaan Djibouti. ujeedka laga lahayn wuxuu ahaa inay mar walba saameyn ku lahaadaan 3daasi dal Soomaaliya xataa markii ay qaadato xorriyadeeda. haddii aan u gudubno dhinaca barwaaqada, ruuxa Soomaaliga wuxuu caan ku ahaa markuu raboodo inuu cuno beer, wuxuu sameyn jiray intuu xalaalaysto xoolaha ayuu kala baxaa beerka, inta harta hilibkana wuxuu u tuuri jiray xayawaanaadka duurjoogta ah siday u quutaan. taasi waxay caddeyn u tahay heerka barwaaqo ay haysteen ummadda Soomaaliyeed xilligaas. taariikhda markay ahayd 1909kii ayaa waxaa ka bilaabatay abaar dhulka Jasiiratul Carab. muddo aan fogeyn kadib waxaa fatwo soo saaray culimada Soomaaliyeed taasi oo dhahaysa waa waajib in lagu sadaqaysto dadka muslimiinta oo ku nool dhulka Jasiiratul Carab oo maanta loo yaqaan Khaliij. 1960kii dib markay u heshay Soomaaliya xorriyadeeda ayay waxay aasaaseen jamhuuriyad cusub oo matasha shacabka. xilligaasna Soomaaliya waxay ahayd dowladda kaliya ee Afrika oo haysata xukun dimuqraadi ah. laakiin 9 sano kadib ayaa waxaa dhacay isbeddel aad u weyn oo bedela taariikhda Soomaaliya. qaybta labaad ee taariikhda Soomaaliya waxaad ka dhageysan doontiin bartan ee Facebooka ama YouTube-ka. dhageyste, waxaan ka codsanayaa inaad like ii saarto, share ku qabato kanaalkayga ee Facebooka ama YouTube-ka, aad follow ama subscribe ii saarto sida ii dhiirigeliso oo anigana kaaga dharijiyo macluumaadka inta aad haysan, sidoo kaleetana kuu kordhiyo ama ku soo xasuusiyo inta aad haysato. sidaas nabadgelyo, waa mahadsantahay.